nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahid horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midimiidaysay maahino si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar channelkan aryaadaha war ma haysiina bariga golihii shacabka la furay madaxweyne farmaajaana furay golihii safkuna maha waa ka maqnaayeenoo ma joogin madaxweynuhuna wuxuu u sheegay wixii uu horay u sheegi jiray war amniga wuxuu ka qabanayo madaxweynuhu ma sheegay sallamida markii madaxweynaha la dooranayay in muhiimadda koowaad amniga la siinayo sheegay war wuxuu yiri amniga qorshe cusub ayaan u dajinay laamaha amniga wuxuu yiri dib habeen ayaan ku sameeynaa wada sheega wax la shahiida ka doona liidi war madaxweynaha ciisadii Kenya Soomaaliya ma ka hadlay taasan si weynay lamba meeli bugdo hogaday awro Mansuur hirinaade madaxweynaha mas'uul isku dhigi doona maye kalma hadlay madaxweynaha khilaafka labada gole ee baarlamaanka aryaadaha warka ana idin wada miidankaas ka wadahaya waran haydin mudee madaxweynuhu golihii shacabka waa furay laga bilaabo saacadana waa furan yahay oo yiri shuruuc badanna waa idin horta Allah wax ka qabdhow yiri war madaxweynuhu markuu khudbaynayay golaha shacabku shaqadoodii ma guteen oo si yaab lama u sacbiyeen saxweeye ay dhahan xawyaha shacabka u dhiman war wixii fanaan meesha joogay waa heeseen wixii u gudoomiye baarlamaan joogay mid hore iyo mid dambe macal cali gacal casirna waa hadleen warnamiya wani warsiin haaye shirkii Nairobi lanka hadalay abuuro Mansuur lanka hadalay lahaay madaxweyne lafta garan lama gada dadii oo ah ka bay furdugaha ku ariyaalaari afhaayeen oo Mansuur roobo hadalina may baaray heshiiska markii la shal saxiixda fadii madaxweynaha mirigan oo aray noo dhuum diyaari wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ugaasasna may baaray madaxweynaha Nairobi mansaana ari war Abu Mansuur laakiin arama kale ansaadi wargaysiin gabadina madaxweyne lafta garan gaga xamara digha ka ari reed maylu ku fadeey bayda u jinaay habuska nagadaw imma Abu Roobo Mansuur galanta ka haaya imma balangaadki jey hore ka fuliyo isku tanazul ma shaqiteegan arya Xasan Daahir ba waa xiran yahay qof juuq ka dabalasa ma jirta idinka xaa Abu Mansuur horta idin daba dhigay ana hel ardaydii titis wiil masabarnay ashar jeey quuyin war shirkii shalay wasiir qarafaan iyo xaafiya shaakir dhaxmaray xalay 8 saac baa lagu kala dareeraa la yiri waxna la iska baaf garan baa la yiri wasiirkii arrimaha guduhuna asagoo careysan buu maanta ka soo laabtaa la yiri war may lehenaaga wasiirka walaagasay mar hore meelaska dhigi jireen wallahi aan yeelayno billahi la yeelayno hatana keenga sii daran maalin Mahmuud ba tush ari aniga mugo horeba wasiir sabriya qarafaan mahaas inuu aado sax ila ma ahayn sababtoo ah waxa la yiri in naagtaada raba gabartaada kuma qanco macallin Maxamuudna kursiga qarafaan ku fadhiya igaarkiisa ubahay u rabaa heday muga see heshiis looga qaadaha horta madaxweyne xaaf haddii qorshe loola tago waa la qanci karaa xasaanad oo xoolihiisa ku ilaashadana la siiyo laakiin waxaan la yaabana macallinka oo raba wiilkiisuna inuu wasiir noqdo seedigiisna wasiir noqdo isaguna raba inuu noqdo aayatullaahiga Soomaaliya sida dhuusamareeb looga furfurayo war maalinka mayn haystan eelubeedka Sacuudiga iska bareejeeyay maday isaaqo maalintan ad ku naqnaqay tahay awal miyaan cawa joogna war sheekh ma runta u sheegtaan waxa Soomaaliya kama jiraan war ma haysaane sheekhi nabadii nolol Kenyaawi ayaa ciidamada u tagay intay soo iyo wuxuu yiri adinkoo lidin diiwaan gelinayo oo shaqadiinu ay sooto inaad furimaha ka soo baxdaan ma ahayn ilaa alaykum ya talka dulqaadatan bay ahayd hasha nabad in nolol muuqato askari baa istaagal yiri marka wuxuuna yiri sheekhu afi walaalka baa la isku ogaayay afi mushaarkaada la isku ogeyn askariga waa runtiisa afi walaalka waa xaq afi mushaarkaaga ayadee u daliishada sheekhu ana helo wala mooshiidi lambar rabitaan jeen daliilsido rabitaan jeen daliilsidi war waxa la yiri laba kala barida kala warla askarigu difaacayo ku jira sheekhuna hotel ayuu jiifaa war waxa la yiri runta intaan qabiranayno beentana qulqulinayno qayraad la heli maayo waxa kale la yiri xaqa intaan caburihayno dulmigana cayilihayno caaqibiyo wanaag iyo caafimaad la heli maayo may kale leeray madiidina intina era maalintii la mushaawiraw uu awlaadan mahbuusna ni haruuriya
mangamaha ka baha kortaan armeeli ma ka jirto mas'uulnimadaas wal halku bedeloy war ma haysaana shalay wiil yar oo 14 jir ah aabihiisa isla socda baabuur lagu qarxiyay wiilkii waa dhintay aabihiisna waa dhaawacmay sababta lagu maagayna waxay tahay wiilka hooyadiis baa waa hore xildhibaan ahaa jirtay war nin baadii joogo ayaa wuxuu arkay diyaarad korkiisa maraysa markaasuu yidhi nin hadda goora ciid ahaan jiray diyaaradda ama ay duqaysaa war nimanyaha waxaa la yidhi xilligii madaxweyne sheekh shariif qaraxyadu waxay ahaayeen sida Champions League oo bishii hal mar la ciyaaro xilligii madaxweyne xasan shiikhna waxay ahaayeen sida Premier League oo toddobaadkii hal mar la ciyaaro xilligan madaxweyne farmaajona waxay noqdeen sida musalsalkii oo maalin kasta la daawado war nimanyo filosoofar reer mudugaha wuxuu macneeyey doqonnimo iyo naxdini waxay kala yihiin wuxuu yidhi doqonnimo waa inaad nin mayda kilkilayso naxdinina waa inuu kugu soo tooso maya wariye aan la yaabayaan sheekadiisa dhegaystay wuxuu yidhi mihi qaraxu ka dhacay 3 mawdaan ku soo arkay laakiin ilama warramino wax xogahon ka sida ma jiraan warwariyeyaasha qaar maydka waraysta miyaa ku jiro af yaqaana war maysina gobolka Gado 7 xarmood oo hormud ay leedahay ayaa la duqeeyay ciidanka Kenya ayaana sameeyay war Mandera baabuur ka baxay 15 qofood baa ku dhimatay leeyahay kulligoodna waa Soomaali baa leeyahay dhaawuxuna inta waa ka badan yahay aryaada Soomaaliya warkii laga sheegayo waa beenoobay goolan haydna waa dhul Syria Donald Trumpna Israa'iil ma sii kare yiriheen war Soomaaliya haday diiday Sacuudiguba waa diiday war Soomaaliya maxay u tari kartaa Syria iyada teedu meel hadaysan u tari karin hay ka tari kartaa aryaadaha ummadda muslimka waa isku mid meel kasto ay joogaan mar haddaad gugi muuqday oo meel ka di'i weysay milmiliyo haddaad rays la muda ciidda marin weysay geelii kumaan raacay baa nooga kaa maqane mase bidashadaadana la mood roobna soo miraye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin qantiyaad ka tag waryaa gabaga maxaad u haydaa adiga maalin walba waraafkama dhoosho